سعيد بريق محمود عبدي لبي لباتن جرأة إنا سكوري شاعر عثمان كل شيء حمر وحالقوقو إيدينا إن آد كتير سنتها كوحدة على الشباب waxaa la weydiinayaa in uu ka jawaabo gaari qarax oo la bartilmaameedsaday barta hubinta amniga garoonka diyaaradaha dhanka kilomitir 4 15 Juun sanadkii tagay laakiin eedeysanaha cilad farsamo dadaalka ilaalada jagboontiga iyo qadarta Rabbi ayaa sababtay badbaadada tobaniyada shacabka ah ee ka agdhawaa barta waxa uu eedeysanaha u arkaa in ismiidaamintiisu isku bedeshay holac iskuna qanciyay in horjoogihiisa iyo isagaba aysan ku ballamin qaabkaas horta aniga gaarigaas hadoo ii qarxi lahaa wixii meeshii jooga horta waxa waaye jahannamay wada aadi laayeen laakiinse gaariga waa maaragta diiday inuu qarxo waan ku celceliyay meeshii laga qarxinay waan ku celceliyay oo ii suuragal weysay kuwii xabadiga soo furjinayaan baa maaragta gaariga ku sheereeyay way kala ordeen difaaca way ka baxeen oo ii suuragal weysay maca dalika gaarigii ayaa dhaxdiisa waxa ka kacay holac iyo waxyaabahaas ka kacay kursigan ku fadhiyo dhan yacan maarta waxa wada qabsaday holac asiga dhan ba holac is qabsaday maadaama holac gaariga oo qabsaday oo dhaxdiisa holac ka kacay marka waxa waa holac in lagu dhinto waa maarta dambi waa ismin kabiir marka gaariga waan ka tagtay qareenada iyo xeelaalinta ayaa isweedaarsaday qodobo sharci oo dhigaya in eedeysanaha maskax ahaan uusan fiyoobeen sidaas darteedna loo diray xaalad caafimaad waxa uu dhinac kasta doodiisa ku xajistay qodob sharci oo u ogolaanayo soo jeedintiisa qodobka kontonaad ee xeerka ciqaabta wuxuu leeyahay qof kasta oo waqtiga uu falku galayay ahaa qof aan xiskiisu dhamayn sabab caruurnimo ama xiseed wuxuu leeyahay marka xiskiisa ay daboolneed kartida fahamka xadgudubka ma qabanayo mas'uuliyad dambi wuxuu leeyahay mas'uuliyadda dembiga ma reebayso qof caadifaysan oo ku jidbaysan arrintiisa ninkaani jidbadii uu ilaa hadda ku taagan yahay qof waalan maaha tan labaad in la daweeyey hal sano ka hor uu dembigu dhacay hal sano ka hor hal sano iyo bilbo afkiisa ka qirtay inay ka soo wareegtay muddadaa intaa leeg isaga caafimaadkiisa maadaama dhaawac uu yahay aan la badbaadinaya kiiskiisu wuu caddaa markuu caafimaaday oo dhan yahay ayaa maxkamadda la hor keenay ma aha qiil hadda ay qaranadu u raadiyaan in hadda dhakhtar kale loo diro wuu caafimaad qabaa waafiyo laakiin wuxuu ku caadifaysan yahay jidbadii hayse iyo wixii maskaxdiisa ay ku soo shubeen amiiradii shabaabka intaas kadib ayay maxkamadda dhigaysatay markhaatiyaal goobjoog u ahaa dhacdada ciidamadii ku qornaa barta hubinta garoonka iyo baarihii kiiska si waafaqsan habraaca dacwadda ayay su'aalo uga weydiiyeen dhammaan dhinacyada fadhigan dhacdadii dhacday 22 Julaay sanadkii tagay gaashaan muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku sababeeyay qirashada eedeysanaha maxkamadda horteeda in lagu qabtay falkii uu ku jiray laakiin hadda ka hor mar uu gacanta u galay ciidamada amniga Puntland qaybtooda bari uu iska dafiray ku lug lahaanshihiisa al-shabaab oo asagoo shaqo u jooga gobolada bari Boosaaso lagu qabtay sida uu maanta halkan uga shactareynaa uu leeyahay shabaab waa ku qanacsanahay iyo fikirkaas aan aaminsanahay muusan isticmaalin maadaama aan lagu qaban cadayn muujinaysa inuu al-shabaab yahay wuu inkiray maalintaas maxkamadda la geeyay process cadaaladda uu maray wuu diiday wuuna dafiray wuu iska biriyay sidaas ayuu ku mutaystay in la sii daayo uga fakaday mataqaanaa gacanta maamulkii hayay tan inuu sheekay maanta uu dhoo shabaab aan ahay waa ku qanacsana fikirka waxa kalifayo waxa lagu qabtay cadayn gaarigu ka soo degtay laga soo dejiyaa qarxay wuu og yahay inuu marnaba bir noqonin ee lagu hayo cadayn sababta keenaysa inuu sheekayo dhoo dambigaas waa galay samaxayel isla saciidkii way Boosaaso lagu qabtay inkiray xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kemi ayaa maxkamadda weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen markuu afgooyo tagay waalidkii isaga dhalay aabihii hooyadii waxay kula taliyeen inuu isu dhiibo dawladda qiraalkiisa maxkamadda ayuu ka hor qirtay inuu isu dhiibo dawladda oo faxas ka baxo wuu ku gacan sayray waalidkii mar labaad ayuu dib ugu noqday shabaab aakhirkiina wuxuu isku qoray inuu ismiidaamiyo sidaas darteed maadaama uu yahay qof ku adag ilaa hadda maxkamadda horteeda
khatartiisana ummadda in laga badbaadiyo u baahan waxaan weydiisanaynaa maxkamadda in ciqaabta u qalanta ee ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedaynay ay ku xukunto maxkamaddu waa mahadsanta qareennada u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamaddu weydiistay in la xanaaneeyo eedeysanaha loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo qofka mar haddii maxalu shaahidkan waxaa waaye وعن المجنون حتى يفيق inay waalin yahay oo cad tahay taasna waxaa tusinaysaa sida hadda isaga ugu dhaqmaya mahlarka hadda la jooga qof miirkiis qaba inay wax socda fahmayo oo dareensan yahay ayaa laga rabaa inay hadda faham waayo meesha isaga jooga waxaa ka dhalanaysaa in isaga aan ahayn qof maskaxdiis taam tahay oo joogto saas daraaddeed waxaa ku raacsanayo codsigii awokaataa iga horeeyey oo inay loo arko in qof maskaxdiis aan joogin yahay oo xanaano u baahan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanay siciid biriq maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. عبد القادر عيسى ورباهية قرن كا مقدشو